ثروة عادية وكلا دي وشيء دي madaxweyne Muuse Bixi Cabdi dhalinyarada anaga wax kooxda STG faata gobolka Soomaaliya ku hadlayna maanta waxaan soo dhaweynaa madaxweyne iyo waftigii la socotay waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow waa wasaaradda caafimaadka oo dhan oo halkan isugu diyaar shaqaalaha macaal dhamaantood diyaar weeye waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagii oo ku soo dhaweynaa wasaaradda caafimaadka codkii wasaaradda caafimaadka dhamaanteed neeras haday tahay laab haday tahay midwife haday tahay dhaqaatiir haday tahay waan soo dhaweynaynaa insha Allah sidii khayr leh والله عيال شو عم madaxweyne saad indhahaaga ku aragto dadweynihii maanta magaalada Laascaanood cidima maqna waa dadweyne way soo wada baxeen waxa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan waxa lagu soo dhaweynayaa mashaariicda aad gobolkan ka hirgelisay intaad xukuumadda haysay ee muddada sanadka wax qabadkii marka madaxweyne waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Laascaanood والسلام عليكم ورحمة الله. أنت الناس صومرين aad ba waxaan ugu mahad celinayaa sida weyne ballaaran aadka xamaasada u leh kalgacalka u leh ay u soo dhaweeyeen maanta madaxweynaha iyo waftiga ballaaran ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo innagu halkan aynu sii wada joognay magaalada Laascaanood waa laga warhayaa hawlo fara badan bay soo gashay dalka reer Soomaaliland bay ka mid tahay nabadeyntii dhulkii ay ka aslaxday bay ka mid tahay maantana waxaynu doonaynaa in madaxweynuhu uu socdaa gobollada iyo dalka intiisa badan ee gobolladan bariga uu marayaa marka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa arrinta nabadda haddii ay tahay tii koonfurta
maxaan ku dhahdaayey gobolkan sool magaalada laascaanood ka dhacday dhumay ka dhacday dabataan ka dhacday eeriya dharkayn ka dhacday waxaynu doonaynaa inaynu nabad ku soo dabaalno waxa kaloo uu socda waxaynu kala doonaynaa inaynu waxa qura ee aynu ku tuntuunsannaa inay tahay midnimada gobolka sool iyo ta guud ahaan qaranka iyo nabadgelyada haddana waxaan u dhiibayaa garajaama madaxweyne waxaanu kugu soo dhowaynaynaa ilaa iyo daarasalaam iyo goori tuulo samakaab adha caddeeye canjiid laascaanood iyo xaruntii daraawiishta oo ugu shishaysa oo taleexa oo diyaar lagaaga yahay dhammaan gobolka sool iyo reer sanaag waxay ku leeyihiin si wanaagsan ugu soo dhowow dalkan madaxweynaha u ahayd waa xaruntii garaadada waana xaruntii daraawiisheed waa ku soo dhowaynaynaa fardihiina waa ku guddoonsiinnay wixii hadalana insha allah caawa ayaynu ummadda oo dhan iyo deegaankaba aanu la hadli doontaa soo dhowow madaxweyne qalbi diiran dalkaad madaxweynaha ka ahayd muxaafad iyo mucaarad labadaba madaxweyne aad u tahay hore aad u sheegtay halkanna maanta waa wada joogaan warso saas ma aha warso ma wada joogtaan waa kaa madaxweynihiin wasalaamu calaykum madaxweynaha gobolka sool ilaa intii aanu soo gallay soo dhoweynta iyo kalgacalka weyseen sida ragga horweyne waa idinka mahadnaqaya gammaankaana guddoonsiisayna waa idinka mahadnaqaynaa gammaanka waa laydinka filayay waa xeradii gammaanka waa nugaal waa dirkii daraawiishta ismaaciil mare iyo xiin filinayaa la furi jiray mar haddaa qaranka bulse waa hadiyad qaran waa doodimeeriya xiin dirkiisii annagu waa hadiyad qaran qof ma aha waxa madaxweynaha la siiya qarankaa leh markaa waa hadiyad qaran oo qaranku leeyahay oo taariikhda geli doonta intaa waxaan u gudbayaa socdaalka aniga iyo waftiga maanta waxaanu u soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahannahay nabad haddii aynu ogna hareeraheenna iyo dalalka jaarkaa iyo caalamka waxa ka dhacaya waxaa loo baahan yahay inay qola waliba iyo dad waloo jaariba halkooda nabad ku qaataan waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa oo ummaddoodana idiin soo ducaynaysay annagu waanu ku ducaynaynaa in ilaahay gobolka sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka sool taariikhda soomaaliyeed dhan ayuu xagga hore kaga yaallaa dhibaatooyinka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitamay ilaahay waynu ka baryaynaa inuu ka qaado oo gobolka sool somalilan iyo soomaaliya dhan iyo geeskaba uu ka noqo gobollada hormoodka ah sidaa dhaqanka u ahaan jirtay taana magan baa laydinka yidhi qodobka labaad waxaan u gudbayaa maanta waxyaalaha ka jira hareeraha waxaynu u baahannahay inaynu meel walba naga raadino walaaladeen soomaaliya dhammaantood waxaynu u rajaynaynaa khayr waxaanaynu u taagaynaa gacan nabadgeliyo oo nabadaynu ku wada noolaano somalilan colaad cidna uma wado baryo hore dagaalo dhacay dhinac walba ha ahaadeena waa in laga gudbaa oo loo gudbaa horumar iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo is-aadi soomaaliya waxaynu jaar ka nahay haddaynu somalilan waa puntland colaada dhex maray dhinacnaba kuwa imika joogaa waa wax lagu dhammayn karo saacada gudahood geed hoostii oon gaalna u soo gurman karin cidina isku afraasay walaalayaal isku diini mayno waxaa sagaalka bilsan oo ah waa xadkii ingiriiska iyo waa xadkii reeraha waa su-aal la dhammayn karo wax kale oo la isku diri karaan ma jiro reerna cidi qasbi mayso dalatana baa go-aan soo saaray oo yidhi waxaa loo soo wadaa ina cabdiga reer sool war ilaahay mooye aad reer sool ma caburi karo taariikhday ku qoran tahay ingiriis bay iska celiyeen talyaani bay iska celiyeen soomaali dhan bay u guuslooyeen markaa nin kale waa la caburinayaa meel buu kala dhacaya sool waxaa looga leeyaa walaal maxay yeelaa abaaraha waa aragtay soo noqnoqonaya dhulkii la yaqaanay ee kuwaanka farda ku noolaan jireen ee taariikhda goobta marka akhriyo nimcada ahaa maanta waa abaar gabaahiira sanadkeed ilaahay mahadii roobku wuu noo wanaagsanaa laakiin ka dambe wuxuu noqonaya garan mayo waxaynu u baahannahay caqli aynu isu dayno is-aaminaad dalka oo dhana iyo inaynu horumar samayno oynu dayfaha nagu weerarsan iska celino oynu loo dagaalano dhibaatada deegaanka lagu keenayo walaalayaal ku horumari mayno qolku kala aargoorsi meelku gaari moogu
aargoos wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dadka walaalaha ee dagaalada dhex socdaan iyagu may go'aansana dagaalamaan waa amar ilaahay waa masiibo ku timi waa tii waxaan la noolayn ka nool aanu tarin waxaa kaloo noo gacmaha u furay shalay halkan waxaa joogay oo gacanta geliyey ina wiilwaal oo ka yimid jigjiga qof kastoo islaama iyo nin kastoo soomaaliya oo nabad ka dhalinaya gacmaha loo qaban nabad taakuleen dad dhimanaya iyo markay nafta hay walaalayaal waxay ka hormarayaan nafta muranka gobolada iyo degmooyin dhexdooda waa dhamayna xagta ay fudaheedna degme heblaayo bakad ka qodi maysid waan ka qodayaa waa deegaankaygii war ilaahay waa wajibaan dowlad degme meelaan ku heshin karin maxaan ragga sameeyay waa masiibo cadowga naga dhacday hore waxaa ka mid ah raggii waraya xabadaha iyo jabhadaha iyo wararka galay waxaan leeyahay socdoo nabad iyo wax dhaamo waayey nabadaasaa loo ogaa ilaahay waxaa laga baryaa nabad taama ilaahay soo waxaa laga baryaa barwaaqo abaaraha ilaahay inuu laga jiriyo dadka beerkooda inuu ducad isu mariyo in khalkhalka iyo colaadaha iyo kala shakiga iyo magaalooyinka dhibaatada haysta ilaahay ka saaro raggana waxaa leeyahay waar dumarkii carruurteenaan ka diranahay ilayada dagaalka ma galaane carruurtana mustaqbalkooda rag waynaan baabinin raggeena waa weyne dumarkii carruurta naxdinta iyo gobolka iyo geeridanka dayno aanu hor soo wasalaamu calaykum